bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan isolboodna la socotaan halkani waa shacabka t v oo idiin soo gudbiya wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka soomaalida iyo caalamka intiisa kale akhbaaraadkan idin ahina waxa ugu doorka roon maxaa kasoo kordhay xiisadii colaadeed ee ka taagneed magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo weli dhibaato ay ku hayaan kooxda jabhadda hubaysan ee uu hogaaminayo sarkaalka fallaagoobay ee lagu magacaabo xuud waxaa idiin soo gudbi doonaa shacabka t v oo wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan xaalada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dowladda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay arrimaha ku saabsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaan idiin soo gudbi doonaa shir u dhaxeeya wasiirada dowlad goboleedyada ee dhanka caafimaadka iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo ka furmay halka iyo magaalada garowe ee maamulka puntland ujeedada shirka waxa ay tahay iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo muddada uu soco doono iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbi doonaa dowladda federaalk soomaaliya oo soo iibsatay gaadiidka dabaabaadka dagaalka oo nooc casri ah kuwaasi oo lagu farsameeyey mid ka mid a dalalka caalamka dhaqaalaha kaga baxay soomaaliya gaadiidka ay soo iibsatay ayaad daawo doontaan iyo masar oo ku guuldaraysatay codsi ay usoo gudbisay dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku saabsan in ay markaa ka taageerto soomaaliya dagaalka iyo maxisada kala dhexaysa masar dhinaca dowladda itoobiya qodobada iyo kuwa kale ayaan idin haynaaye meel kastoo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada oo kusoo siqa faahfaahinta qodobada wararkayaga waxaad ra'yigiina kusoo cabiri kartaan daawadayaashana qiimaha inaga mudan soomaaliya ayaa iminkaa soo iibsatay gaadiid dagaal oo casri ah kuwaasi oo lagu farsameeyey dalka jabaan islamarkaana ka tagi wanaagsan gaadiidka kale ee markaasi afrika laga isticmaalo guusha ay gaartay soomaaliya iyo sida duwartaa ra'yigiina saliimka kusoo cabira janaalka sabskribe aadin hado muuqaalka leegino saara iminka aynu gudagallo qodobadii wararkaasi oo dhammaystiran iyadoo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan beriye lasoo dhaafay ay ka taagneyd xiisada u dhexaysa maamulka gobolka hiiraan iyo sidoo kale maleeshiyada janaal xuud ayaa iminka wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay sheegayaan in ammaanka magaaladaasi iyo goobaha kale ee ku dhow aada loo adkeeyey iyada oo howlgallada lagu sagayay ammaanka iska kaashanayaan ciidamada dowladda soomaaliya qeybahooda kala gedisan sida booliiska iyo militariga waxay ciidanka sidoo kale ku raad joogaan maleeshiyada janaal xuud oo si gaadmaa inta badan weerar ugu geysata dhinaca magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka kale ee la helaya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya gacanta kusoo dhigeen tiro ka mid a maleeshiyadaasi kuwaasi oo iminka la doonayo in maxkamad lasoo saaro si sharciga loo marsiiyo wararka kale intaasi waxa ay ku darayaan in ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gacan bir ah lagu qabtay xaalada magaaladu waa ay degan tahay balse muddo haatan laga joogo dhowr cisho ayaa maleeshiyada janaal xuud weerar ay kusoo qaadeen gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weerarkaasi waxa uu soobay khasaare nafeed isla markaana dad shacab ah ay ku waxyeeloobeen sarkaal u hadlay ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan dhanka gobolka hiiraan ayaa sheegay jabhadda hubaysan ee xuud in ugu dambeyntii cagta la marsiin doono maadaama ay u bareereen dhibaateynta dadka shacabka ah dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay xiisada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya jenaraal mukhtaar abukar afrax ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga la marsiin doono kuwa dhibaatadaasi ka dambeeya wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya aysan aqbalaynin xiisadaha kusoo laalaabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan la xisaabtana la marsiinayo cid waliba oo kiisaskaasi ku lug yeelata wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo qoraal dheer soo saaray ayaa geesta kala tilmaamay in magaalada beledweyne ay ku wajahan yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya dhowaana la filayo in halka uu tago hogaamiyaha dowlad goboleedka hiirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe oo weli ku maqan dalka turkiga wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya wuxuu ugu baaqay bulshada deegaanka inay isdejiyaan kana fogaadaan wax waliba oo keeni kara in magaalada beledweyne dagaal uu ka dhaco deetana dhiig uu ku daato jabhadda janaal xuud waxa ay ku doodaysaa waa in la saxa saame qaybsiga maamulka hiirshabeelle xiisadan ayaa sidoo kale soo bilaabatay markii ay qabsoontay doorashadii uu ku soo baxay cali cabdulaahi xuseen guudlaabe muddo haatan bilooyin laga joogo hase ahaatee guudlaabe doorashadii uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada jowhar waxa ay keentay inay ka hor yimaadaan qoliyaha siyaasiyiinta iyo kuwa kale ee mucaaradka ee dhanka gobolka hiiraan kasoo jeeda waxaana ugu dambeyntii asaasantay
jabhadan uu hogaaminayo General Xuud kuwaasi oo doonaya in markaasi maamulka Urdunka ah ee Hiirshabeelle ay xagal daaciyaan wixii warar ee ka soo kordha arrimaha gobolka Hiiraan waxaad kula socon doontaan daawadayaal wararkeena dambe isha ku haya ee shabakada wararka shacabka TV si aanay wararka iyaga idin seegin waan idinku soo gudbin halkan warar kale aad u xiiso badan bal hadii markaan eegno dawladda Soomaaliya ayaa soo iibsatay gaadiid dagaal oo casri ah kuwaas oo lagu farsameeyay dalka Japan sirdoonka Soomaaliya ayaa laga soo xigtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay soo iibsatay tiro kamida gawaari nooc casriga ah oo lagu farsameeyay dalka Japan gaadiidkaasi oo dawladda Soomaaliya kaga baxday lacag ka badan 100 milyan oo dollar dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale u suura gashay iyada oo taageero ka helaysa wadamo kale oo dhanka dhaqaalaha ka caabiya inaanay wax deen ah lagu yeelanin markay soo iibsanaysay gaadiidkaasi oo dhowr boqol ka kooban waxaana isugu jiraan taangida dagaalka iyo sidoo kale kuwa uraalada loo yaqaan iyo kuwa kale ee waaweyn ee dabaabaadka ee dagaalada loo adeegsado xogtaan ka soo xignay sirdoonka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan gaadiidkaasi ay ka soo deji doonto dekada magaalada Muqdisho marka la dhameeyo processka iibsashada gaadiidka iyo sidoo kale howlaha kale ee harsan ilaa ay haatan haddaba shacabka TV ayaa xuraansiya dabagalba ku sameeyay cidda xukuumadda Soomaaliya ka gacan siisay gaadiidka ay soo iibsatay waqti xaadirkan si aan xog badan ugu helno dhaqaalahan ayaa qayb ka ah miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo lacagihii ay dawladda Soomaaliya u keenisay shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyntiina dawladdu waxay kaga faa'iideysay ummadda Soomaaliyeed lacagii dalka u soo xarooday lacagtaasi oo haatan lagu soo iibiyay tiro kamida gaadiidka dagaalka si dalka dhanka quwadda ciidan iyo hubba looga dhiso waxaa sidoo kale lacagtan qayb kamida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka caabiyay oo ku kaalmeeyay dhinaca dawladaha dhanka dhaqaalaha ka taageera sida dawladaha dhanka dhaqaalaha ka taageera ee reer Yurub iyo sidoo kale dawladda kale ee Turkiga oo saaxiibtinimo dhab ah iyo garab istaag weyn ba u muujisa Jamhuuriyadda ee Soomaaliya balse xogtan aan ka soo xignay dhanka sirdoonka Soomaaliya ma cadeynayso waqtiga rasmiga ah oo gaadiidkan ku soo beegay yihiin ama la keeni doono gudaha magaalada Muqdisho waa hagaag daawadayaal waxaad weli la socotaan oo aad daawaneysaan wararka shabakada shacabka TV meel kastoo dunida ka joogtaan kulanti hagaagsan ayaan u leeyahay oo ka soo aragtay diinta qodobada warkeena magaalada Garowe ee maamulka Puntland waxaa ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada shirkan oo noociisa mid heer wasiir ayaa diiradda lagu saarayaa arrimo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo sidoo kale waxyeeladii uu dalka u geystay xanuunkii safmareenka ku ahaa dunida ee COVID-19 wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada caafimaadka ee heer dawlad goboleed ayaa ku wada sugan shirka oo ka soconaya iminkadan magaalada Garowe ee Puntland waxa uuna qaadan doonaa muddo dhowr maalmood sidaan uu xogta ku helnay oo gaaraysa ilaa iyo 3 maalmood oo gaaraysa ilaa iyo 3 maalmood wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Fawzi Abubakar Nuur ayaa sheegtay in shirka qodobo wax ku ool ah ay ka soo bixi doonaan waxa kale oo wasiiradu ay tilmaamtay in shirkan uu daba socdo shir hore uga dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay sanadkii hore ee 2020 haddaba muddada shirka uu socdo ayaa dhinacyada u dhaxeeya ee wasiirada dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada isla qaada dhigi doono qaabka ugu wanaagsan ee markaasi horumarka caafimaad ee dalka looga shaqeyn karo inta badan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxaa dhaxmara iskaashi wada shaqeyneed oo lagu horumarinayo howlaha ku saabsan arrimaha bulshada Soomaaliyeed iyo adeegyada kale ee bulshada u baahan yihiin ugu dambeynna haddii aan warkeena ku soo gabagabayno dawladda Masar oo kamid ah dawladaha Afrika ayaa u soo gudbisay xukuumadda Soomaaliya codsi ah in laga gacan siiyo taageerideeda ay kaga baahan tahay Soomaaliya ee dhanka xiisada kala dhaxaysa Masar dhinaca dawladda Itoobiya qoraal wasaaradda arrimaha dibadda Masar ay u soo dirtay dhigeeda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ku xusnaa in Masar iyo Itoobiya xiisadoodu ay sii sare martay isla markaana suuragal ay tahay dagaal toos inuu dhaxmari karo dawladaha Masar iyo Itoobiya waxa ay dawladda Masar ka codsatay dawladda federaalka ee Soomaaliya garab military iyo sidoo kale taageero kale oo siyaasadeed intuba laakiin qoraalka ay bixisay xukuumadda Soomaaliya ay ku jawaabtay ayaa isaguna ahaa mid cajiib ah qoraalkaasi oo dawladda Soomaaliya u dirtay Masar ayaa lagu sheegay inay dhaxdhaxaad ka tahay xukuumadda Soomaaliya arrimaha iyo danaha u dhaxeeya labada dawladood ee Masar iyo Itoobiya balse dawladda Soomaaliya kaliya ay diyaar u tahay inay kala dhaxdhaxadiso labada dawladood ee Afrikaanka ee walaalaha ah ee iminkadan xiisada u dhaxaysa dawladaha Masar iyo Itoobiya ayaa ah arinta wabiga Nile ama Blue Nile taasi oo soo jiitamaysay dhowrkii sano ee la soo dhaafay Itoobiya ayaa ku adkeysatay qorshaheeda biyo xareenka
halka dowladda Masar arrinka iyaduna ay dhibaato u aragto ee biyo xireenka ma jirto wili cid si rasmi ah u kala dhaxgashay dowladahan Afrikaanka ee xiisada u dhaxayso warkii aad kala socoteen daawadayaal shabakada wararka ee shacabka TV oo taxadir kale waanaga inta daawadayaal waad ku mahadsantahay daawashada wararka qaybaha kale ee wararka inta dib keli doontaan nabad geliyo